meeshaas waxa xalaala kama dhacin sababtuna waxa weeye mar haddii dowlad goboleed sharci oo sharciga leh oo si sharciga loo doortay halkiina aanan si sharciga looga qaaday ayaan jirin wixii la sameeyaa oo idil oo kale waa baadil way wax kama jiraan way marka anigu doorasho aan aqoonsanahay meesha kama dhicin sababtoo ah anaa madaxweyne ah waxa la igu doortayna waxay ahayd meel public ayaa la igu doortay sanduuq ayaa la dhigay goobjoogayaal ayaa joogay warbaahinta ayaa goobjoogahay xildhibaanada waa la wargeliyay oo ay mid ay usoo xaadireen ayay ahayd halkaa waxa laga sameeyay waxa weeye wax aan waxba ka jirin oo aan sharciga waafaqsanayn marka sidaa daraadeed hal dowliya nirig xalaalo ma dhashaa la yiri marka waxa meesha laga sameeyay wax sharci waafaqsan ma aha haddii xoog lagu shaqaysanayana waa goori xamarba waxaa jooga dad guryahoodii xoog lagu haysto goobtii lagugu doortay xildhibaanadii fadhiyay ee adigaba marka hore ku codeeyay ayuunbaa markii dambena ku garan waayay xilka oo xilkii ka qaaday haatan madaxweyne cusub u codeeyay sideebaad markaa ugu tilmaami karaysaa inay sharci darro yihiin ma marka adiga ku doortaan bay wax sharci yihiin waxa weeye maxuu ahaa in doorasho meesha ay ka dhacdo baarlamaankii doortay waana baarlamaankeedii weeye laakiin baarlamaanku hadde naftiisu sharciga ma jibin karo xaqna uma laha inuu jibiyo baarlamaanka marka mooshan la keenayo madaxweyne xil laga qaadayo waxa weeye waxa la kala dooranaya inuu madaxweynaha sii joogayo iyo inuu tagayo ayadana doorasho maadaama ay tahay waa in sanduuq la soo dhigo waa inay goobjoogayaal joogaan aniga layma soo wargelin mooshanka layga keenay iyo eediisa layma horkeenin inaan maxuu ahaa imaado meeshii fursad la ima siinin ma dhicino waxa dhanba waxay ahaayeen 24 saacna sideeda banaanbana caalamka oo idil waxaa loo yaqaanaa wixii 24 saac lagu suubiyaa waa afgembi weeye maahana wax sharciya maaha maxkamadda sare ayaad dhawaan dacwad u gudbisay dacwadaadaasi halkay ku dambeysay wallahi maxkamadda sare anagu dacwad waa u gudbinay sababtoo ah meesha ma aynan ku haysan anagu sharci darrana kuma aynan haysan qori caaradiina kuma aynan haysan waxaanu ku nimid doorasho nidaam sharciya haddii sharcigii la waafaqi waayey maxkamaddii waan u gudbinay dacwadayadii waa ay agtaalla looyaradeennii waa ay u tageen hadday gudoomiyaha maxkamadda sare agtaalla gudoomiyaha maxkamadda sare taa ka jawaabaya anigu jawaabteeda ma hayo sababta ay u dhacday in aanan hadda maxuu ahaa dacwadii yani in weli aanan la gelin waana sugaynaa in la galo sababta oo waxa weeye sharciga sidiisa mid laga tagayo ma aha anagu waxaan diyaar u nahay maxkamadda horteeda inaanu ka muujino sida ay waxa la sameeyay 14 Agoosto ay reer sharci u yihiin oo aysan dastuur waafaqsanayn haddii maxkamadana taasoo go'aanka gudoomiyaha maxuu ahaa maxkamadda sare marka uu go'aanka hadda gaaro oo uu yiraahdo dacwadu waa la galayaa markaas ayaa loo yiraahday diyaar u yihiin laakiin anaga dhinacayaga waa ka gudubtay kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdilaahi Cusuble madaxweynihii hore Hirshabeelle oo ilaa haatan aan aqbalin natiijada iyo doorashada ka dhacday Jowhar shalay toole